Turkiga waxa uu markaan dejiyay qorshe cusub oo uu ku garab istaagayo dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda difaaca Turkiga ayaa waxay si toos ah u sheegeen in Axadda maanta oo ku beegan 17 May 2026 in mas'uuliyiinta Turkigu ay ooda ka soo qaadi doonaan ciidamo isugu jira Soomaali iyo kuwa Turki ah kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay tababar kala duwan ku qaadanaya gudaha dalkaasi. ciidankaas ayaa qorshuhu waxa uu yahay inay adkeeyaan amniga guud ee Soomaaliya iyadoona Ankara ay sheegtay in uu bislaaday shidaalka Soomaaliya lana joogo waqtigii banaanka loo soo saari lahaa Soomaaliduna ay ka faa'iideysan lahayd. Mas'uul sare oo ka tirsan dowladda Turkiga waxa uu tilmaamay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahaasi iyadoona mas'uuliyiinta iyo xubnaha dowladda federaalku ay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyadaasi guud sida ay hadalka u dhigeen. saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dowladda federaalka waxay dhanka kala tilmaameen in maalmihii u dambeeyay ay wadeen abaabulkaasi xoogan iyadoona dhanka kale mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay bilaabeen sidii ay u sameyn lahaayeen qorshe culus oo ay ku difaacayaan marka la eego ciidanka kala duwan ee dowladda federaalka kuwaas oo sugaya ama kaalin weyn ka qaadanaya qorshaha lagu adkeynayo amniga guud ee Soomaaliya. ila muhiima ayaa dhanka kale waxay noo sheegeen in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyada guud ee ku saabsan arrimahan iyadoona mas'uuliyiinta dowladda federaalka iyo xubnaha kaleba ay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyada iyo abaabulkaas oo haddii hadda aan la saldhigin qorshahan noqon kara mid si guud iyo si gaar ahaaneedba diiradda loo saari karo xaaladda iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee dhanka Soomaaliya. Turkiga si aan ka gambasho lahayn waxa uu taageeray dowladda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay in markaan dowladda federaalku uu garab istaagsan yahay isla markaana uu ka difaacayo culays walba oo ka yimaada dhanka iyo dalalka kala duwan balse arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyadu ay isaga filan tahay waa sida mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga ay xaqiijiyeen. maalmihii u dambeeyay waxaa socday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku aadan sida ciidankaas loo keeni lahaa gudaha Soomaaliya waana ciidan isugu jira Soomaali iyo Turki si ay qayb weyn uga qaataan sugidda amniga guud ee dalka. sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada badda Turkiga waxa uu sheegay in maraakiibtooda xeebaha Soomaaliya jooga in si guud iyo si gaar ahaaneed nabadgelyadooda ay u ilaaliyeen iyadoona qorshahaasi uu ka dhashay kadib markii Ankara ay heshay xog dhanka sirdoonka balse la diiday in la baahiyo kaas oo ka dhan ah shidaalka Soomaaliya. dowladda Turkiga dadaalada ay wado iyo isku dayada guud ee dowladda federaalku ay ku doonayso inay ku soo saarto shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya oo xilligan oo kale loo garan og yahay waqtiga kala guurka ayaa mas'uuliyiinta mucaaradka iyo muxaafadkaba waxay laba daraf ku kala dhigeen arrimaha ku aadan dhanka doorashooyinka iyo muddo-xileedka dowladda federaalka oo ay ku kala aragti duwan yihiin. laakiin Turkiga ayaa si toos ah u sheegay in kala duwanaantaas iyo qaybsanaantaas aanay saameyn ku yeelan karin marka la eego dhaqdhaqaaqyada guud ee socda sabab la xiriira in Ankara kaliya ay doonayso in Soomaaliya ay xageeda ku istaagto sidoo kalena kheyraadkeeda dabiiciga ay la soo baxdo lagana hortago wax walba oo dhibaato ku ah waa marka la eego fargelinta dhanka dibadda. Sacuudiga iyo dalal kale ayaa la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay garab siinayaan walow war goordhow soo dhacay uu sheegayo in Turkiga uu kaashan doono dalal kale oo Afrikaan sida Masar oo la sheegay in ay dedejinayso ciidamada ay u qorshaysay in gudaha Soomaaliya ay geyso. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay fursado dahabi ay keenisay dhanka iyo Turkiga waxaana jira mas'uuliyiin ka tirsan xubnaha mucaaradka dowladda federaalka oo dhaliilay hanaanka siyaasadeed ee Turkiga uu ku wajahayo dhanka Soomaaliya. xubnahaas waxay ku doodeen in xilligan la joogo aanay habbooneyn qaabka Ankara ay u fakirayso taasoo keenaysa in mas'uuliyiinta iyo xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya ay bilaabaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahaasi tiyo jirto ayaa haddana mas'uuliyiinta dowladda federaalka ay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan in la gaaro hadaf siyaasadeedka weyn ee arrimahaasi ku saabsan. mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya
ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ee socday ay yihiin kuwa diiradda lagu saarayo xaaladaha guud ee dhanka siyaasadda haddii la gaari waayo qorshaha iyo ujeedka ugu weyna uu yahay mid dhibaato ku ah mustaqbalka iyo saameynta dambe ee ku saabsan in la helo shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya ku jira oo u baahan in isfaham guud laga gaaro waa sida ay hadalka u dhigeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa in muddo waxay raadinaysay fursado kala duwan oo lagu dhisayo dhanka ciidamada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dhawaan sheegay in xilligan socda ama xilligan waqtigan la joogo dowladda federaalku ay bilowday qorshe weyn oo ku saabsan in la gaaro hadaf siyaasadeedka ah sidii loo ballaarin lahaa guud ahaan dhaqdhaqaaqyada guud ee ku saabsan arrimahan iyadoona mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay dhanka kala tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyada iyo abaabulka guud ee la xiriira dhanka howlgalladaasi socda oo haddii la gaaro hadafka ama ujeedka ugu weyn uu yahay mid si guud iyo si gaar ahaaneed dowladda federaalka Soomaaliya ay diiradda u saari doonto qaabka ugu dhow ee ku saabsan arrimaha guud ee howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda dhanka geeska Afrika wixii warar idacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigtay warbaahinta xulaansi ku daawo waad ku maasan tahay daawashada socodka iyo sidoo kale fariimaha aad kaga aragtid dhiibanaysaan wararka iyo warbixinada aan halkan idinkugu soo gudbino